halkaad inaga daawanaysaan waa saxafi films oo alaaba idin soo gudbisaa barnaamijyada aynu kaga hadlayno Bollywood ka daawadayaal waa salaamantiin dhammaanba meel kastoo aad dunida ka joogtaan. Barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa Shami oo ka mid ahayd maamooyinka wax ka daadiya filimada lagu dilo shirkadda Bollywood ka dalkaasi Hindiya ayaa geeriyootay maalintii Talaadada ahayd. Daadeedu waxay ahayd markii ay geeriyoonaysay 89 sano, waxaana saxaafadda dalkaasi Hindiya la wadaagay designerka amaba naqshadeeyaha loo yaqaano Sandeep Khosla ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay geerida Shami. Waxa uu yiri aad ayaan uga xunnahay, waxaa naga tagay oo naga geeriyooday qof agteena qiimo weyn ku leh. Dhammaan ehelkeeda iyo qaraabadeedana waxaan u rajaynayaa in ay ka samraan. Haddaba kadib arrintaasi waxa ay isla markiiba bartooda Twitter-ka soo dhigay jilaaga caanka Amitabh Bachchan oo ka mid ah aktarada shirkadda Bollywood-ka ay filimo badan la daadisay ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in eedadays Shami ay geeriyootay. Eedda aad ayaan kuu jeclayn, waana ka xunnahay buu yiri geerida kugu timid. Familka aad ka tagtayna waxaan leenahay iska samra, dadka oo dhammi waa ay wada tagayaan oo cid dunida joogaysa ma jirto. Haddaba aktaradan waa Shami waxa ay wax ka jishay filimo caan ah oo gaaraya ilaa 200 oo filin. Filimada ay daadisay waxaa ka mid ah filimka Kulia No. 1 oo ay jilaaga caanka ee Amitabh Bachchan uu aktarka ka ahaa. Filimka Hum Gopi Kishan oo aad wada garanaysaan oo Sunil Shetty aktarka ka yahay amaba Gopi Bachchan bakaad u taqaanid. Sidoo kale waxaa ka mid ah filimaanta ay wax ka daadisay Hum Saath Hai. Waxaa kaloo ka mid ah aktaradan filimo badan oo ay caan ku ahayd oo ay wax ka daadisay iyada oo doorarkeedana lagu xasuusto in ay ahayd hooyo aad iyo aad u adag. Haddaynu soo qaadano dadka sidoo kale geerida ku timid qoftan ka hadlay waxaa ka mid ah xubin hore oo ka mid ahayd baarlamaanka dalkaasi India, waana gabadha la dhalatay jilaaga caanka ee Sanjay Dutt. Waa gabadha lagu magacaabo Priya Dutt. Waxa ay soo dhigtay sawir iyada iyo hooyadeed oo wada sawiran, waa Nargis iyo Shami. Waxay tiri eedadeen ayaa geeriyootay, waxay ahayd aniga hooyaday saaxiibadeeda qaaliga. Waxay noo ahayd bay tiri sida hooyadeen oo kale. Markii aan maqlay geerideedana aad ayaan uga nahay. Kumanaan qof oo taageero u ahaa Shami ayaa soo xasuusan doona. Haddaba intaasi kadib aktaradan geeriyootay waa Shami. Daadeedu waxa ay ahayd 89 jir. Filimka ugu dambeeyay ee ay daadiso oo ay jishana waxa uu ahaa filimka ay daaraktarada ka yihiin Farah Khan iyo Boman Irani, waana filimka lagu magacaabo Shirini Farhat Kito Nikal Badi oo sanadkii 2013 ay wax ka daadisay. Haddaba aktaradan geeriyootay waa Shami ayaa la sheegay in ay muddaba xanuunsanayd. Xanuunkaasi ay la ildarnaydna ay ugu dambeyn u geeriyootay, inkastoo markii da'deeda loo fiiriyo uu 91 sano oo qura uga dhinaa. Waxaad moodaa in geeridaasi ay ku timid aktarada caanka ee Shami. Jilayaal badan oo shirkadda Bollywood-ka muddo badan kusoo jira ay ka naxeen, waliba kuwa da'doodu ay aadka u weyn tahay. Daawadayaal, barnaamijka aynu kaga hadlaynay Shami iyo geerida ku timid waa Shami oo ka mid ahayd aktarada shirkadda Bollywood-ka ka howlgala. daawadayaal, barnaamijkaasi intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. barnaamijka waxaa idiin daadiinaya anigoo Caaqil Cabdifaar. halkaad ka daawanaysayna waa Saxafi Films. daawadayaal, inagoo isku duuban waa baada saxafina waxa aynu markasta idinku celinaa oo idin sheegnaa haddii aynaan asxaabta ku xiran Saxafi Films ahayn, fadlan subscribe saar Saxafi Films, kadibna gambaleelka taabo. fikirkaagana nagula wadaa qaybta commentiska ee isla Saxafi Films. intaynu barnaamijkan lamida ku kulmaynana waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad gel.